markii kuugu horreysay oo aad shukaansi bilowdo in aad wax shukaansato qurxo xabiibi macaane waxay kadib kugu soo celin lahaa shukaansi waxyaabahaas waa mogtahay markii kugu horreyd ooda wax shukaansa imisana jir baad ahayd meeqaad shukaansiga ku bilowday macnaha da'dee waxa u maleynaa 14 inaa jiray. okay masha allah wallahi iyada way soo jabtay waa general 14 14 sano laakiin waxa dee shukaansi ma aade iska sheeko caadi iska ahayd. صح عادي عادي Yeah. Mhm. afar iyo toban wallahi maasha allah maariish oo hadda da'daan jirto adiga 20 iyo xoogaaba iska dhabi jirtaa waa sidaani 14 sano markay jirto wejigeeda suu ahaa arrin dadku kala nasiib badanaa dee iska ahaade waxaad maxaa ilaahay suu qof xoolaa ku taleefon kaa jirtay soo waca oo iskuul ay isla dhiganaysiin oo wax iskaga wuxuu ka hadla aada ka seenin like iska caadi wax shukaansi ma labo mogtee. صح okay markii ugu horreysay noloshaada inta aad yacni shukaansi dhallinyarnimada ila iskuul baa la wada dhigan jiray waa iska taqaanaa gabdhuhu saaxiiba bay ahaayeen hebel iyo heblaayi way wada socdaan ba laisdhihi jiray waa la isxamin jiray wiilkii kuugu horreeyey ee hortaada inta soo istaagay taleefon ma haya hortaada inta soo istaagay ku yidhahda maariish waan ku jeclahay goormay ahayd sanadkee ahayd ilaan gabar walba maalin baan wiil soo hor istaagaa wuxuu ku yidhaahdaa waan ku jeclahay markii taleefon iyo qoraal laga soo tago gabar aan intaa la kulmay ma jirto sanadku ahaa sanadkii wiil inta kusoo hor istaaga ugu yidhi waan ku jeclahay waxay ma fogeyn I think waxay ahayd 2016kii ama 17kii meelahaas ahayd. okay I think 16 ka soo 17kii ahayd. qaadanaynaa okay ma aqbasho marka jaceylkiisa may waa taani taasaan ka cabsanaya in igu dhacdo astaghfirullah maya gabar foolxun haddaad ahaan lahayd mar aad aqbal lahayd laakiin qurux badan intaad ogtahay maasha allah maasha allah okay adig weligaa marka maadaama maya aad tiri adig weligaaga iyo allaha qof waad ku jeclahay intaad tiri ama jaceylkaaga aad u sheegato qoraalba allaha ka dhigay abow waa kaa helay cabdiyo faaraxo maxmedow ma uu ku yidhi sidaa oo kale negative ma uu kugu jawaabo maya si un maya xataa maahane abbaa xiriir baan leeyahay ama xaas baan leeyahay wuxuun ma lagugu dhaa weligay ma dhihin ani qof so weligaaba jaceyl ma sheegan ba adig macnaha wax ma jeclaatid jeclaan xataa qof inta tago see u dhaha waa ku jeclaa ma dhihi kari be wa okay haddaa wax jeclaato maxaa samayn lahayd bismillah waa iska sugaale maalin wuu tagay macnaha waxaad sugaysaa inuu qofka adiga aad jeclaato ilaahay kuu soo jeediyo isaga kuu sheegto inaa isqarxiyaa marka fadhi imayaan maybe inaa qofka like dee adi maya gabdhaha inta badan waxay sameeyaan qof direct ma u dhahaan waa ku jeclahay ma fahantee maybe inay wax oo wax like qofka markaa wax badan inaad dareensiiso waa macquul laakiin direct waa ku jeclahay ma dhihi kartid may gabadha haddana wiilasheena waxa waaye wax kale ay aaminayaanba hadday gabadh inta u tagta idhahdo waa ku rabaa waa ku jeclahay waxay leeyihiin yaa maxay wadaa bay ku dhahayaan ukeed ha laakiin tusaale ahaan oo kale waxaa jira qaab wiilka aad ku dareensiin karta inaad jeceshahay oo aad dhihi karto wallahi waa qurux badan tahay dabeecadahaadaan ka helay labiskaadaan ka helay abooga dhaqamadaadaan ka helay waxyaabahaabaan ka helay qofka markaa intaad tiraahdid wiilka wuu ku dareemayaa ma fahanti ha of course de maybe ha waxyaabahaas oo kalaa ka hadlayaa qofka inaad dareensiisi waa macquul laakiin sida wiilasha ay sameeyaan direct ma u dhahaan ma dhahaan maya laakiin gabdhuhu isku mid maahan gabdhaha qaarna waa ay sheegtaan jaceylkooda oo waxa weeyaan ama ha lagu daadiyo ama ha kusoo guulaysato gabdha qaar waxaa jira adagoo hadday nin jeclaadaan ruux ku jeclahay bay ku leedahay ama igu diid ama igu nac ma fahanti gabdhaha qaarna iyagoo wax jecel bay is dhaafsiiyaan xishood baa dhaafsiiyey ninkii waa laga qaataa ama wuu iska tagaaba ma fahanti ani kuwaasa ahay waa laga qaadanaa ha may waa laga qaadanaya laakiin hadda wax badan baa dad u sharaxdayo rag badan oo iska aamusnaayba isqarxin doona hadduu ilaahay waa isaga nasiibso waxaan waa loo tirigan la ciyaaroo kale meesha laga yaabo kee raadinaysa in adiga tahay marka
u sheeg waa kaa helay qofka qurux badanaad tahay ilaaha ilow intaan kabaad ma qarsan karane ya rabbi iyo rasuulaan ku dhaartay haddaa u raaciyo dhaartaasuu ku aaminaysaa waa qof salaama adiga hadda fiiri adiga dars ahaan gabar intay ku imaatay inay ku dhahdo oo ku jeclahay iyo ina adiga raadsatid keebaa qiimeynaya ina adiga raadsatid sax wallaahi aniga been kuma sheegay intii xiriir aan soo sameynayay intaan xiriir soo sameeyey maariish dabcan mustaqbalka inaad guursataa jeclaan lahay haddaad aragto inaad isfahantaan maadaama hadda aad tahay gabar madaxa bannaan aan weli guursan hadduu ilaahay calafka gudarayo mustaqbalka nin wanaagsan inaad guursataa jeclaan lahayd sax okay ragga soomaaliyeed maanta weliba rag soomaaliya adiga nin qof dhaqankeeda aad u jecel baa tahay nin soomaaliya aad ku rabtaa nin ajnabiya ma rabtid maariish baan garanayaa dee haade ninaan soomaaliya ninba uma maleeyahay waa gabdhaha foolxunba kuwa ajaanibta ka daba wareegaba ilmo qurxoon bay raadinayaan mugta laakiin adaa qurux badan ragga soomaaliyeed foolxunba adaa kugu talagalaba dhasha inay qurxaan marka yurub iyo america iyo african kasoo qaadaya saddexdaa qaaradood qaaradda africa qaaradda america oo haddii joogtood canada iyo maraykanka iska north america inta kale waa iska baahay south americanka iyo yurub oo ingiriiska iyo wadamada jarmalka iyo switzerland saddexdaa qaaradood keebaad jeclaan lahayd ninka inuu joogo xiriirka adiga aad la sameynaya aad guursanaysid والله horta xiriir markay imaato dee qaarad ma ku xirna moogtahay sax qofku meeshuu doonaba ha jooga hadda waxaa la joogaa waqti labada qof ay si easy isku heli karto ma fahanta aad iyo aad waa la kala dhamaysan karaa haa meel kastuu joogaba dee social media la isticmaalayaa qaarad ha joogo ilaa baadiye hadduu joogo taleefon inuu haysto bisaa ka xigta qofku inuu ku helo ma ogtahay meeluu kaala soo xiriira hadduuba helo taleefon haysto dee wuu kula soo xiriiri karaa so ani qaarad ma ku fiirinayay iyo wadan muhiimada waxaasa isku fahana ma fahanta aad iyo aad soo saddexdaas qaaradood meeshooda waa ha joogo waa inay isfahantaan meeshuu rabaa jooga ani I don't care wax ma iga kelin okay maxaad ku xulan lahayd marka nin noocee ah yacni dooqaaga raba caaw inaan ogaado nin noocee ah waa inuu sidaa iyo sidaa iyo sida ahaadaa waa lagu duubanaya abahay يعني gabar waxbay ka heshaa gabadha waxay ka heshaa ragga waaweyn xildhibaanada ay lacagta leh gabadha waxay ka heshaa ragga iyada ku levelka ah ee dhalinyarada ah wallahi gabdhaha qaar hadda markaa weydiisay waxay ku leedahay wallahi buwaanay nimanka dhowr iyo kontonka sano jirka ah waan jeclahay xoogaa raggaasa wax dhaqan kara dumarka dhaqan kara bal dooqaan ku weydiinayaa maya aniga ma jecli qof saa'id iga weyn mana jecli qof taajir saa'id lacag badan haysto ma jecli because qofka lacagta badan haysto uu kaa mashquulayaa waqti ma ku siinayo ma fahantay si fiican aad iyo aad because waxa weeye maanta markii aad lacag aadan haysanin waqtigaaga wuu badan yahay stresskaaga wuu yar yahay maxaa la dhahaa waxyaabo badana ma aragta kuu suurtoobaya laakiin markaa lacag badan haystid waxa weeyaan lacagtaada si u badan tahay u bisigaagana u badanaya ma fahantay stresskaagana u badanaa farxad la-aantaadana u badanaysaa lacagta farxad ma keento ma fahantay so aniga qof iska caadi ah oo iska shaqaysanayo oo noloshiisa dabaranayo dee aan mataqaanaa in balwad lahayn qof macquul iska ah balwadda way badanta abay balwad maxaad u taqaanaa wallahi balwad ani waxaa u aqaanaa balwad waxaa u aqaanaa dadka dee balwad way badan tahay yes laakiin balwad noocay doonto ha noqoto balwad waaye sigaarka ka waran sigaarka ma jecli nin sigaar caba aniga qaadkan iska badaa ها اوكي سو نين aan balwad lahayn jeclaan lahayd ها yes xagga aqoonta ka waran inuu aqoon lahaado in qasab miyaa mise waa in hadduu wax qori karo wax akhri karo waa caadi wala aqoonta horta waa aqoontu waa muhiim mar walba qof wax bartay qof markuu wax barto wuxuu yaqaanaa sida dadka loo xushmeeyo garanayaa waxbarashada qofku wax badan ay ka toosisaa ma fahanta dhaqankiisa qaab ahaantiisa dad la dhaqankiisa ay ka toosisaa waxbarashada qofku markuu jaahil yahay ifan xataa ma garanayo adin qiimaha ugu fadhisid ma garat taasaan been so inuu qofku wax barto waa muhiim sax yes gabdhaho dhan markaa su-aal weydiisid
waxa ugu badan ay gabadha ay ku leedahay number one waa balwada. nimanka balwadana dumarku way neceb yihiin, sababta ma garanaya. haddana saas tahay raggii wadankii joogay hadda Yurub inta badan balwad maba taala, baan sigaar ahayn iyo shiisho. boqolkiiba 70 ragga waddanka joogana balwad bay leeyihiin. ma fahamtid? way leeyihiin haddana waxay ku xirantahay dad waxaa jira balwad isticmaalo oo dowlado dhan maamulo ma fahantee. aad iyo aad sax sax dad waxaa jira balwad isticmaalo oo nolosha ka dhacay. sax. so way kala duwan yihiin ayaga laftirkooda maaragtay dee waxay kala leeyihiin isteebyo ma fahante. qof markuu laakiin uu low noqdo kale waxba uusan qabsan karin oo kale dee taas u malayn mayo gabar isku halaynaysa inayba jirto. wallahi taasaan meenahayn. su-aalaha haddaan kaa badiya naga raali noqoyaa qurux badanaya. caadi we Ya. okay dib malaha. maarishay wadaadada culimmadaas isku tihiin nin xoogaa aanu taajir ahayn laakiin shaqayso waxayso adiga wax u shaqeeyaan isnin loo shaqeeyo laakiin aan taajir ahaynoo ilmihiisa biilan kara xaaskiisa nolol fiican gelin kara, balse wadaada surwaalka qoobka hoos korkiisa ugu joogaa gar aad weyn uu leeyahay laba cerra camal baa ku taalo maasha allah, catarkiisa iyo shannadiisa jeebka ugu jirta. ninkaa ka waran catarada gaagaabkaa jeebka ugu jira iyo hal xabo yaro shanla sharaxay sidaa cabsi maya nadaafatu nisfu min al-iimaan sooma dhihin. ya culimmada inta badan shala yaroo maaragtay shala carbi oo jeebka la geliyo waxaa jirta iyo catar yar bay wataa mugtahay. tiri culummada la soo qoraya ya nin noocaha bal ka waran ilaahay wax siiyey. walaalow aniga horta wadaadada hal mida aana ku jeclaan because too much naag jecel waaye. I love you naag naagti arka waxay leeyihiin ilaahay baa irsaaqada bixinaya dhagab tay arkaan buu isku qabanayaan ma fahantee. sax tay arkaan buu waxay leeyihiin dhakab waxay ku leeyihiin nin shantii salaad tukanaya waxba ma waayo dhakab waxaas marka ka bixi karaa. ogow laakiin ninka aan wadaadka ahayn ee wax bartay ee shaqaysta isaga naftirkiisuba naf buu leeyahay oo naag uu kula guursan karaa. ninka adigu waa sidaad ka dhigato. I know waa saa ka dhigatid walaahi laakiin haddana saasay tahay yacni siday u badan yihiin waa moogta saa aragnay hadda anig macallimiinta waxay soo bareen ayagoo wax fiican xataa soo galaynin oo guryahooda ay ka dansan tahay bay afar saddexaas guursanayaan qaarkood waa la yaabaysaa mogte. aha waa arkay taasaa been ahayn. marka kuwa iska caadi a fiican aan shallo wadan. shalladaas dhib ku dhigan iyo shallada waxaa la rabaa in meesha loogu talagalo la dhigo laga tago maxaa shalla la qaadana maxaa maya shallada uu qaadanaaba iyo cadayga waxa dhan meesha ugu dhex jiraan. cadayga weliba maaragtay midka xididka maaragtay cadayga xididka ugu jiro jeebka. caadi weeye kaas xataa dhib ma laha laakiin anduuqayga horta calafku waa iska cajiib dee meeshuu rabo ku geynayaa moogta adi ma maamushid. calafku waa cajiib calafku waa cajiib wallahi taasaa beenahay. abbaay dhalinyarada soomaalida haddaan nahay sida hadda anigoo kale markaa fiirisid xoogaa nin caata ah baa nahay ma fahantay. so dhalinyarada soomaalida waa isaga dhalanay dumarkeenna boqolkiiba 70 waa dumar iska xoog leh maasha allah, hooyooyinkeen way xoog badan yihiin. aabayaasha waa iska taqaana aabayaal iska dhuudhuuban waa aabayaasha soomaalida boqolkiiba 70 six bag bay leeyihin weligoodna jiimaysan ahayn ma fahantay. waa iska maaqan marka maadaama hadda aad tahay qof wax baratay ilbax ah ee north america ku nool dalka canada waddan yani ilbax ah rag maadaama aad jeclaan lahaydba haddaad oori noqonayd nin soomaali ah inaad oori u noqoto ilmahaaga aabooda uu soomaali noqdo, nimanka caatada ah iyo nimanka xoogaa yaro dhisan jirka iyo nimanka xoogaa yaro buurbuura saddexdaa keebaad aad leedahay waa xaaji waa inuu sidaa noqdaa. nimanka saddex u kala baxaan mid waa caato tusaale ahaan mid waa iska caato midna waxa weeyaan waa nin xoogaa iska yara caafimaad loo caloolna ma lahan ma buurna caatana maaha laakiin waa nin maasha allah sheegu kasta uu buuxinayaa. ninna waa nin xoogaa calool yaro kuusan yahay. marka saddexdaa kee kugu baxdaa. oh my god horta aniga waxaan isleeyahay qofka sheebkiisa wax macnaa ma keenayso oo hadduu horta cayilan yahay
dee jiim baa jira moogta waa la caateyn karaa. صح Anigana haddaa xaaskiisa ahay dee aanan ka helin qofka intaa isfahantaan adoo jecelba haddana haddaadan sida qaabka sheebkiisa u yahay aadan ka helin waxaad dhihi kartaa macnaha jiima aad waxaan sameey waa ka waanin kartaa wax weyn maa mogtahe. صح dhaayataa u sameyn lahaa waan ka sixi lahaa cuntada. hadduu caato yahana waa cayilin lahaa dee brotiinaa jira maxaa wax weyn maa mogtahe. سفيعة so aniga I don't care wallaahi qofka aniga maku qiimeeya inuu cayilan yahay inuu caato yahay inuu dhuuban yahay waxaas وهذا إلهي هدو عرف حتى عبد النبور إنه كل صالحان إن أذكر هدو إلهي عرف قدر وعاطي سكرتها kaas shaqo badan u baahaye. يا دي أنا هدي اللي مقتل كي عاطد salaamaya kowdhe laakiin وعيل لي يا بتر كي عاطد كي بنان oh وعاطي my god that's too much bro taas way badan tahay dee cabdilbuurna maasha allah wiil waxa walaalkay waa inaa xun dhaho ma rabo laakiin xoogaa waa too much ma fahantay. تحسف يعني asagoo kale ma sheegayaan laakiin waxaa ka hadlaa saa sheegto qof yara calool iyo waxaas le waa tiri moogtaa. تحسف يعني Yeah. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله so at least qof buuran waxaaba dhaamaba qof caate ah dhaamo oo dhaqso la cayilin kara haddaa u baahatid wax ku dar kartaa qof buur waxba looguma tegayaba hawaya digsi dabadiisa ugu tegaysaa ilaah ka maangal ilaah sa buurnaashada ma fiicnaba maanta digsi dabadii wax ka raadi yaanye iyo barbarooni baad raadinaysaa kan caatada roona xoogaa beer iyo waxyar subax markaa u shiisho kale iyo buskud isugu shiido oo iska caadi buu noqonaya laakiin xariif maaha xariif buur ilaah ka maangal anaga ya xariifad buuran dhibka adinka inaas anaga una haysta anaga xariifad buuran waa ka maangal hadda aniga ahaanta idris haddii la yidhaahdo gabar caata iyo gabar buuran idris oo tii qaadan lahayd tan caatada la buudi lahaa سموي aad marka buurni maya walaa cayilka dumarka iyo ragga midna ma u fiicno waxa uu dhib badan yahay ma fahanta qofka sheebku ka haleynaya ma aqaani qabro aad aniga hadda waxaa jirta weligii aniga ma aan cayilin maalintaan shillah hadda caataan iska fahantay laakiin alxamdulilah caatinimeeda kuma ana qasaarin ma fahantay haddaan buurnaan lahay wasaa'il haan lahayn ma caato saa'id ma tid adi laakiin iska dhexdhexaad baa iska tahay ما الحاد كان مد قوي حتى يعني وين بقى موت هذاك النير إيه ملاينا يعني هذا محاول يجيب لها داء ويقصوا به ممكن لو هذا كل كودي مركز سمبوس كعني ما يقصر الجسد قرطها لو هذا كودي مركز أربعتين تابع لقيا هذا قضية معه لو كودي يا لو هذا كل كودي ها حاجة جوت ما لو كوني كودي ما درانينه ما لو سنجر مركز أدي هذه سياشن إيو تضوّدي ملاك على تمرك سيد حسن جر أفضل جر بل إيه واقعا بصدق يسوقني سو حرام لودها أنا المجال أنت العسى الهندي حرته أو شات حرته أو برفونك قضية مرصده وسوق حوله وريج جري حافظ لي لدي مدي الواء إلى مصلحة بنتيجي جرني دم ولي أمان هرك قضية صور جوان قضية صور جوان ذكر شو كان سي أنا كنت جرت مياه وحباش كان سنة يسميها مركز أنا شو كان سي وحام بالله بينكم الشيء سجال سنة أنا بجري ما شو كان سي بالله 9 years old سجال سنة ما نبغى مع وروح يورا أنا 9 years old بقى وسجال سنة عنو جرا وح شو كان سنة ولي ما أكين بسوي يلس دي أنا وحنا أنا موفقين جريو وحمر كسو كوريو عيال سوق حولها أو نب بدنا كسو كوريو سجال سنة ما كان جري أبغى معنا لها يعني قبلها 1 minute يا جاجرة سقف صناعة هاي هذا وحاك سهر جد سكول هاي عيدا ما ذي حد وحرين جري مركا حافظها كسو كوريو قال قرع حفيرنا يسهل نوقع قاعد يجري لقيها دامية ها بروكات مو يحرنيز أنا أقول إلى أمركس أنا الذهب ما سوق كودة لكن وحنا أنت بدل وحنا لا يجو كنا جفتي والله قبلنا وحي عناني لأيهن قبلنا الذهب بيجفتان له كنا الدنيا أنا حاطرها يقول صنتها استغفر الله
أنا كا maya اسمه saas ha قرحين لها dhihinin كنت هبك أديك هو كينا جفتي وهو كينا عادي اسمه قرحين لها جنة أم قناة. walaashayaa gifti igu keentay markaan gaarayay aan youtube-ka gaarayay 400. أنا هذا يوتيوب أنا فرموكتها. تيك توك youtube تيك ma توك furateen تيك توك أنت في ريا وحق وجا تيك توك إن مرة لو راح وان ربو وراح أزل سجتك ما أنا راح قبل بقى تير دخترة أو مقدشة ما كان قبلها صومالي وحبرت معركتي وأصل هم بقى ودك هذا كلها بتان دياس برو أجا إذا دوين دونا ما شاء الله ما وحي كان تبع في الشنة معركة جيرك قاركود العقب بدها تنا نيسن تون يكبس على ده بدها لسه waa arke يا waxaas waa arkeen run miya waxaas digsigii igaa maamada ay lasmaha suugada noogu karinaysay bay dabadaydi ka dhigeen ma dabadaydan kabsar gelin karaa ilaah baa ilaah maxaaba ii haraya waxaas laakiin maxay ku keeneen waa yaabeen cilmigaaba saa sheegaya ku leeyihiin ba caafimaad bay baratay acuudu billah igata maxaa waa wax waana waa ubaanihi dadkaani idris sheekaa ii wadhaye 9 sano markaa shukaansiga bilaabaysay ha macnaha macnaha maxay kaa ahayd 9 sano maxaa sheegaysay wallaahi aniga horta xaafadan kusoo koray waxay ahayd xaafad oo basiib xaafadaha la yidhahdo muqdisho suuqa xoolaha waa xaafadda ugu dambaysa degmadii hilwaabi ku taalla waqooyiga markii la aadayo gobolka shabeellada dhexe la aadayo jowhar dhinaca bay ku taallaa xaafadda inteeda badan waa basiib ma fahantay xaafadaha basiibkan gabdhaha ku badan mogtahay marka 9 sano markaan gaaray qur-aanka horta waa dhameeyey 5 mar baan dhameeyey iskuul baan dhigan jiray almuslim la yidhaahdo suuqa xoolaha ku yaala bareefada markaaba iska taqaanaa saaxiib baa iska yeesho shukaas iska galayo 12 sano jir markaan ahaa been kuma sheegaya dharka xataa waa feerinsan jiray shaar aan feerinsan habeen kuma bixi jirin 12 years oo markaan ahaa waxaan ku bilaabay marka shukaansiga waxaan ku bilaabay markaan aad u yaraa adiga 8 sano 9 sano markaan geli rabay shukaansiga waxaan ku bilaabay soomaaliya waxaa jira canjeera lagu quraacdaa inta badan canjeerada marka habeenkii baa la qasaa habeenkii waxaa loo baahan yahay marka cajiin wax la yidhahdo lagu qamiiriyo ma fahantay gabdhaha yaryar maaragtay dhowr iyo 10 sano jirka 14 sano jirada waa maamada cajiinka usoo diraysaa suuqa xoolaha marka qoraxda markay dhacdo laamiga dhinacidiisa qof kasta miis wuxuu ku ganacsanaya uu iibinayo soo dhiganaya laamiga meel yar un baabuurta ee maraan u baabanaa inta kale way buuxaan caanaha sambuuska kacka hal mar miya waan u malaynayaa I don't know mise 2 mar baan iri gabadh okay she's beautiful yani qurux badanta abaa iyo beautiful waa kaa helay laakiin inta kale waxa weeye dhankooda iga imaanaya ilaah markiiba ilaah baa ii soo jeedinayo taa aniga rabo ilaah baa ii soo jeediyey isgaagaad oo kale I don't know ma aqaan laba hadal macnaha gabadha hadal baan dareensiiyaa gabadha aniga markaa jaceylka igu sheegan ma hadal dareensiiyaa ixtiraam يعني كالسوني ما كو أبورها سو قبضي أنا أنت على مكان أنت درنسيو لقى يا إنه دك كذا يجي ماذا نحرس وأنا كيف يستمر كم فهمت لكن هو اسمه الله العظيم أنا نفسي كل ميت بها اسمه راح ينكره وإيش أتكينا يا اسمه أتكي لكن حاجة إن أصل الله دي عندي دايو حاجة يعني وقت ما نصير ترتيب ستيب باي ستيب إذا سوقني ذا منها قفوا بزوغر سحر miya laakiin wallahi been kuma sheegay waa dhaartay ilaahay amarkiiba aniga qofka marka aan ka helo aan jeclaado inkastoo hadda social media lagu jiro qurbahan aan soo galay waagi Afrika jooga aan ka hadlay Afrika wagaan jooga